الله محله ومانتا halkan soo kaay keenay caleema saarkan aan marxaati ku nahay kulligeen oo wali ay maalin taariikhi ah oo madaxweynihii labaad ee lagu doortay magaaladan insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay hawshiisa uu fududeeyo waxaan rabaa inaan u hambaliyo oo kale dadkii ka qayb galay campaign-ka oo tartanka ku jiray sida wanaagsan oo sharafta badan oo dignified ka ah oo wanaagsan ay uga qayb galeen iyo sida uu aqbaleen natiijada iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed iyo ciidamada AMSOM ee Itoobiyaanka ee halkan jooga oo sugay amaankii magaaladan si ay uga dhacdo doorashadii taariikhiga ahayd oo runtii adduunka dhan laga fiirsanayay laga daawanayay oo ay cadeed sidee u dhacday runtii waxay ahayd election ama doorasho taariikhi ah waxaan rabaa inaan adkeeyo oo aan hoosta ka xariiqo hadalkii madaxweynaha uu yiri Cabdi maxamed xasan lafta garen iyo madaxweyne ku xigeenkii maxaan ku raahdaa Puntland hadalkay yiraahdeen oo ahaa inuu isbedelay xiriirka dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ah waana soo dhawaanaynaa maxaa yeelay waxaan nahay hal dawlad ayaan nahay waxaan nahay hal dad ayaan nahay xaqiiqatan looma baahna in la yiraahdo calaaqaad waa la kala goostay looma baahna shaqadii waa joojinay looma baahna maxaa yeelay waxa loo shaqeeyo waa shacabka Soomaaliyeed waxa dhibaatadu hayso waa shacabka Soomaaliyeed waxa ku baaba'aya waa sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed marka inaan garbaha isqabsano gacmaha isqabsano oo aan shacabkeena iyo dadkeena u adeegno waa waajibaadka naloo doortay insha Allah ballanweeye inaan wada shaqeyn doono ummadeena aan u shaqeyn doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh